oo intay yiraahdaan nabiga ka sheekaynayna bay madadan sariican ya rasuul allah madadan sariican ya hab oo rasuulka laga sheekayaan isku ogeeyne madadan sariican xay ka timi walaalayaal mustaqbalka rasmiga ee insaanka waa inuu adduunyada intuu joogo uu kasbado al-a'maal as-saalihah amal saalihah wuxuu leeyahay saddex sharti shardiga ugu horeeya waxa weeye an yaqa'a an muslimin waa inuu qof muslima ka dhaca shardiga labaad an yakuna khalisan liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala amalka qofku uu sameeynayo ee uu rabo inuu qadimo horumarsado aakhirana uu ku badbaado adduunyada intii la joogo waxa lagu noolaadaa bariis iyo baasta iyo biyo iyo caaniya waxa lagu noolaadaa laakiin amalka uu rabo inuu qadimo qofka muslimka oo horay u geysto waa inuu yahay amal Allah u baraxla subhanahu wa ta'ala oo alle aan waxba loogu darin waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa inuu yahay amalkaasi amalan muwaafiqan li sunnati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waa inuu yahay amal waafaqsan sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa inuu yahay maxaa yeelay nabiga wuxuu yahay sallallahu alayhi wasallam rasuulkii ugu dambeeyay ee la soo diray waxaana loo soo diray dadku sida Allah ay u caabudayaan subhanahu wa ta'ala inuu baro u sheega waa inuu ku waafaqaa qofku marka uu rabo inuu amal sameeyo Allah uu ugu dhawaado waa inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa inuu ku waafaqaa amalkaas sida uu u sharciyay xagga sababka iyo xagga jinsiga iyo xagga kayfiyada iyo xagga kamiyada iyo xagga waqtiga iyo xagga makaanka amaasha qaar ba makaan lagu sameeyaa meel kale lagu sameyn karin qaar zaman gaaraha la sameeyaa zamanka zaman lama sameyn karo qaar ba sabab gaar leh sabab kale looma yeeli karo kayfiya nabigu u sameeyay kayfiya kale looma sameyn karo sallallahu alayhi wasallam adad ba nabigu ka sameeyay sallallahu alayhi wasallam dadka uu farayna adadkan ka sameeyaan adad kale lagama sameyn karo waa inuu sidaas u waafaqaa qofka raba inuu qiyaamaha ku guuleysto amalkiisa illa amalka wala miisaamaya waana la fiirinayaa waa inuu ku tala galaa in saddexda shardi laga hela waa inuu muslim yahay waa inuu amalkan alla dalaadi u sameeyaa amalkaani waa inuu waafaqaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam diinku uu la yimid waa inuu waafaqaa saddexdaas shardi si fiican u fiiriya inta markuu ka soo baxo amalkaas waa inuu ku dadaalaa inuu ka ilaaliyo amalkaas wax buriya mudilatul amal waa inuu ka ilaaliya waxyaalaha amalka buriya tusaale haddaan ka soo qaadano waxa kamid ah shirkiga gaalnimada kufriga nifaaqa ilhaadka intaasi gaalnimo wasla soo wada gali kartaa macnooyin gooniina way kala leeyihiin nifaaqa iyo ilhaadka macna gooniye leeyihiin shirkiga iyo kufriga marna waa la isku daraa marna waa la kala duwaa ala kulli xaal wax amalkiisa burinahay oo gaalnimo waa inuu ka ilaaliyaa waa inuu ka ilaaliyaa arriya istustus ficilka uu sameeynayo waa inuu u sameeyaa alla dirti waa inuu san u sameyn hal lagu abaal mariyo iyo hal laga sheego waa inuu ka ilaaliyaa as-sum'a sum'aduna waa hadalka way hadalka qofku markuu hadlayo hal lagu maqlo dadka markuu wacdinayo markuu quraanka akhrinayo markuu kutubta akhrinayo markuu waxyaalahaas ilaahay ugu dhawaanayo lagu hadlo hal lagu maqlo waa inuu sanu oran alla ugu dhawaati waa inuu sameeyaa ficilka markuu sameynayana riyaagu wuxuu galaa ficilka sum'aduna waxay gashaa aqwaasha waxa kamida salaada casarka inuu ka tagaa salaada casarka qofka ka tagay nabiga sallallahu alayhi wasallam udur daar laan uga taga amalkiisu waa buray way fara badan tahay waxaan ku soo qaadanay khudbada bidcadu waxay kamid tahay waxyaalaha qofka amalkiisa buriya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka tagay diinko kaamila qofkii diintan wax ku soo dara nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa aan diin u ahayn oo raba inuu alla ugu dhawaado qofkaasi amalkaasi wuxuu noqonayaa amal aan wax ka soo qaad lahayn waa mid hadda aan lahayn waa inuu waafaqa wixii rasuulku uu la yimid sallallahu alayhi wasallam waa inuu waafaqa bidcadu marka waxay kamid tahay waxyaalaha qofka amalkiisa buriya ay kamid tahay maxaa u daliila man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd bi nabiy sallallahu fa huwa radd ay mardud wax alla wixii qofku uu sameeyo ee wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam diin u ahaa asaga saxaabadiisa في أمرنا هذا ونبي إشارة هيو
وحنا هين قفكي لي ما دو أسقو الدين تكسر دراهي وقفكاسي والجور الدين هي ومردودة واحد صاحبك مجرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رسولك صلى الله عليه وسلم وحى لقوا يقاني مركو خطبينها هي وحورنجري فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها الكاس أمسعدا وشر الأمور محدثاتها الرما وحل الرب إلا يقول هذا سبحانه وتعالى وشر بدن هو الذي بلغ كيانا بدعك السنة والضلال والله دارمي صحابتي رضوان الله عليهم والله دارمي وحكير النبي صلى الله عليه وسلم قفكي نولادو إذن كمدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وحو أركي دونا خلاف فربضا وأنا متكمانتي كتاغان دادك مسلمين تادي حدودا حديث كاسي وعلم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم وحو كمدي هاي على مدها اللي وقرت النبي محمد حق نبديس قفكي نولادو إذن كمدو النبي صلى الله عليه وسلم وحو أركي دونا اختلاف فربضا وادوي مرك النبي صلى الله عليه وسلم سيد اللي قبض بال هي واشيك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ بل تعبير كاس أفي الصدى وروحها لازمتان سنة إذا هي السنة كوي النبي صلى الله عليه وسلم أقول أنت أسوأ كرال لأه وحي أتكسو قارتين وأنا إيجا كانين وحاس الدين كدك تيرو كدك النبي صلى الله عليه وسلم وحو أيجنا كسفي الراشدين المهديين يا خلفاء كوي وجهر الثلاثة إيه هنون سناء اللي حق سنة اللي جهنوني وحي أيجا صور نقليين وأيدين كانين وحي النبي صلى الله عليه وسلم جوز دنبيذا كوقب صدق هالكافيرش عضوا عليها بالنواجذ جوز دنبيتك وحوي الكوه وكل الدوين كوان وين يلا بضع وحل هذا الثنايا كو حقنا وحل الرباعيات كو حقنا وحل انياب انت من دمشق معو شيء النواجذ جوز دنبيديده ساسنا لك مترجمين جري جوز دنبيديده كو قبسده maxaa jira hilibka haduu san jilixsanayn marka aad gooynaysid ilkahan kore laguma gooyo waxa lagu qabtaa gowsaha dambaa lagu qabtaa si uu kugu go'o يعني waxa lagu qabtaahi waxay noqonayaan meel fiican ku jiro adag waxa rabtay inaad ku gooysidna waa ku gooyn kartaa waxa rabtay inaad ku qabatana kaaga fikan maayaan laakiin halkan hadaad wax ku qabato saas qofka la dabcin laga siibo si saalan baa looga siibi karaa ilkuuna khatar bay ku galayaan laakiin gowsuhu way ka xoog badan yihiin kuwa kale athanaayana way ka xoog badan yihiin rabaciyaadkana way ka xoog badan yihiin anyaabtana way ka xoog badan yihiin bal fiiri arrintaas maxay tahay waa mubaalaqatun fi al-ittibaa waxa lagu xeel dheeraanayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam sida loo raacay ساسو النبي أورنجر صلى الله عليه وسلم خطبتي سو أورنجري ساسو خطبتي سو أورنجري النبي صلى الله عليه وسلم ومقشين بانو ملايين هيا مركل يدين خطبين هيا ننكي خطبين هيا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ودين ليه رسولك خطبت ساسو أورنجر صلى الله عليه وسلم معايا لي وحو النبي صلى الله عليه وسلم ضد بدون أهل البدع إن إيمان دونان دينتنا شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلى الأدي دونان إسلام مركيبا النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وحي سيمو تنين بالبدعة دي وبالعبط بدعة وطبلابطي واد مقشين بدعة الخوارج باللابطي بدعة الوحد باللابطي الرافضة بدعة الإرجاء بدعة الخوارج باللابطي بدعة فربضان بدعة المعتزلة بدعة الجهمية بدعوين فربضان أيا باللوضة وحير النبي صلى الله عليه وسلم سقوا جيريودي مركو جيريودي وحير دبدين أيا نمك خوارج تصبح ساسو مركو النبي صلى الله عليه وسلم إشارة هي وأكدقة هي صحابة دي سنة رضوان الله عليهم ساسي هاي ابن عمر وحيري كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة أثر كاس قبصده وحانت كباب بإسان قف الله قف كيري هذا بدعة حسنة هاجرته تاسات وقهر ما نسا كباب بإنس يا أثر كحفظية كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة بدعونا وضلال يبادي هذا بدعة شرعية بتاعي أيس اللغوية هين ضدكم هو أركان inay wanaagsan tahay oo ay fiican tahay waxa loo keeno dhanna wax kama jiraan sidaas oo kale ibn umar afarkaas waxa iska ibn umar mar kalena waxa la socday mujaahid ibn jabri waa taqaanan waa mufassirkii weynaa taabiciga jililka ayaa la socday maalin masaajid bay soo galeen markaas fathawaba rajul fi dhuhri aw al-asr nimba tathwib sameeyay tathwibka waxa la yiraahdaa
iqaamada waa la yiraahdaa markii la adimo la aqimhayo waxa kale oo la yiraahdaa as-salaatu khayru min an-nawm waa la yiraahdaa waxa kale oo la yiraahdaa midaan ay la qaylshaan masaajidda ka qaylshaan oo markii la adimo ama ka horba uu leeyahay soo baxoy tanabahu ya niyaamu soo baxoy salaada u soo bidca dalaal baadi waa bidcada meel kasta ay geliyeen tawxiidkay geliyeen salaaday geliyeen soomkay geliyeen xajkay geliyeen umraday geliyeen nikaaxay geliyeen meel aysan gelin lama arka bidco dadku adkaartay geliyeen meel aysan gelin lama arka midaas weeye markaas wuxuu yiri اخرج منها نصار فإن هذه بدعة مساجد كان ومساجد أهل البدع كنت كم من النصار أثر كأسجن وصحيح صحابة رضوان الله عليهم أدب وجهر تجين ذاتك بدعة لا إيمان جري لما سوكوا بكرة ابن مسعود وكلم حور جري اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم والراعة حق الراعة سيد الله بوير سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء رسولك صلى الله عليه وسلم أولي الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول من يطيع الرسول فقد اطاع الله وان تطيعوه تهتدوا رسولك حداد اطيعدان وراعدان وادهنونيسان وحو اورن جيري اتبعوا ولا تبتدعوا ور idinka raaca wadadan la idin jeexay raaca ولا تبتدعوا بدعها الله imaanina ليش فقد كفيتم دواب اللي كافيه ما حد كفليس بدعه دواب الكافيه ما عملكي النبي يا صحابتي زي ما الله ايمان كرتا ادغو هدي عمر لوغو دار ومايا فقد كفيتم قدال محو كدغاي ugu damariy adarkaas oo kullu bid'atin dalaal bid'a kastana waa baadi sida nabigu u yiri bid'a kasta waa baadi bid'ada بمختلف انواعها iska ilaaliya waxaan u maleynayaa inaad ogtihiin bid'ada dhibaatada ay keentay waxa kamid ah wuxuu yiri sheekh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah bid'adu dawladaha hatta way dumisaa wiir sabab way wax u noqotaa buu yiri hatta inay dawladuhu ku dumaan dhibaatada ay leedahay kala waxa kamid ah amalka inuu marduud noqdaa waxa kamid ah dadka inay kala geysaa hadda fiirsha hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam diinta sidoo uga tagay ay ahaan lahayd dadkan ma iskhilaaf lahaayeen cid kale iska dhaaf caalamul islaam iska dhaaf Soomaaliya dadka jooga Soomaali hadda low waa loo saari laayahay nabigana sallallahu alayhi wasallam dadka hogaamiya laba qolo ku sheegay al-umara wal ulama haday culimadu aysan bidca ku kala tagi lahayn oo qolo kastaba aysan dadka meel ku oodan lahayn ma Soomaaliya dhibaatadan kama jirteen maxaa yeelay culimadu waa quwaad xagga ruuxda weeye oo la mari karin haday midaysan yihiin xaqina ku sugan yihiin dalka waxaan ka jira kama jireen nimba meel buu xoogaa ku haystaa bidcadaasuna ku dhurahaya ku daldalaya waxa hadda soo dhow oo aan rabay inaan kalimadeyda marka ku saabsaneed aan rabay inaan ishaaro idin ka siiyo hadda waxay bilaabayaan qayladii mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam marna way bilaabayaan mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam dalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam naxariis bay ahayd soo diritaankiisuna naxariis buu ahaa deelmintiisana nabiga sallallahu alayhi wasallam naxariis bay ahayd guula badan oo gaarana naxariis bay ahayd waxa ay sameeyaan oo ay leeyihiin ihtifaal bil mawlid an-nabi baan dhigayna sallallahu alayhi wasallam nabiga dhalashadiisii baan waxaan u sameeynaa dabaaldeg aan u sameeynaa waa bid'a la rabo qof kasta ee raba in nabiga lala soo saaro xawdkiisana uu ka cabo inuu nabiga ka difaaco sallallahu alayhi wasallam la rabo iska dhaaf inaad ilaahay ugu dhawaataan warkeeda xagga iska dhig maxaa yeelay meel ka dhacbay nabiga ku taas sallallahu alayhi wasallam xoolay qalahayaan raashin bay karinayaan waxay leeyihiin xoolihii mawlidka aan ku dhigi lahayn la soo aruush nabigana sallallahu alayhi wasallam sadaqadu waxay ka ahayd xaraam nabinimadiisa asaga iyo aalkiisa iyo mawaalidiisa xaraam bay ka ahayd waxaana lagu garanayaba nabinimadiisa waxa lagu garanay inuu sadaqada cunay hada awalan ثانيا عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي يقول دوان صحابة خلفائي أفرتهين يسون يقول دوان صحابتي كسرتين يسون يقول دوان نبي إلهي يسون يقول دوان تابعين تينا يسون يقول دوان أئمة الهدى يسون يقول دوان الله ويسون سمين مرنا من الإحسان لقينا كين حرف كم ده أبو حنيفة مالك بن أنس إمام الشافعي أحمد بن حنبل أفرتاس إمام متكمده ما سمين أفرت كتاب أمهاته ستة اللي يرادو أفرت لحدة ألفتي لحدة واحد نجي هذا لحدة كتاب أمهاته ستة اللي يرادو لحدة ألفتي كتبت اللي اعتماده هل نفروا كم إذا ما سمين من أوجد من كل سمينه إمام البخاري إمام مسلم أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه هل مذو كم إذا موجود
ابن جرير الطبري ما وقين، ابن خزيمة ما وقين، ابن منذر ما وقين. أئمة المسلمين غرور مفضل إسكاب داور كذا أيضا وادين سو شاقة منا ما وقين. سيكون عكرتا عمل مقتضيه كاني لها هي السبب كي كاني لها أو قائمها قاعدة داس صفة عنه حفظية مقتضيه كاني لها مولد كواجر حل قاس ومحوها وحبك النبي إليه صلى الله عليه وسلم النبي حبك إنسان سامو سمعين إنه يجعل كيس مانع كور استاجنا لما أركو مثال صلاة تراويح جماعة اللي قلت كذا النبي صلى الله عليه وسلم ذات كوات تجي دورها بين كبعدنا واجوي والنبي صلى الله عليه وسلم واتشوشي مقتضيه كاني لها مال تاس إن صلاة جماعة اللي قلت كذا هي واجري لكن ما دي مانع بجري مانع معها إلا أن واجب يلا كبقى النبي صلى الله عليه وسلم مولدك مقتضيه كاني لها سببك كاني لها مال تاس مجري مثل مجري واجري ومحوها رسولك صلى الله عليه وسلم جعلك سوها مانع كور استاجي النبي أنا مجري النبي قال صلى الله عليه وسلم كيف تفعله أنت سيدو سمينيسا مدة كلا قف وحن سمينها يا نفتي سووه وكدقها يا قف شارعة وحو اسكو شبهها يا شارعي وذلك شرك في التشريع ساسا بالله أورن كرابة شرك في التشريع ويا الله أورن طيب مانع كجوجي لما أركو إنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي واجريودي دتك يا وجه الله أدنى شكي وحسن كجرين أبو بكر يا عمر أبو جعله أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي أبو جعله محاجرة عمر بابا وحي رسولك إلهي واكاتش الله قف كست واكاتش الله لأنت أحب إلي إلا من نفسي بي لا لي مايا أنت كنت نقدر والله حتى النفط إذا كاتش الله الآن يا عمر هده نين كاسن مولد سمين نبي جعلك سنة أسمين أنا وسمين هيا وين الدين ده كان دين وقدك هيا أبدا صورة قلمة قفك لقد عيانا وحيري العداية ننجوغي أو العذاب أقوم مجروير العداية وحوها آفادتك كوها بستي أو ضدك من دا بقول من دا كنت الله حواله أو أن توبت كينين العذاب أقوم مجروير أنت سنين اللي قدوا الأخريين إنه النبي قدك جري صلى الله عليه وسلم إن النبي سمين سحابتي سمين رضوان الله عليهم ضدك النبي وجع الله عز سمين أي قف أنيقا إلى مدى أما هل يرى هذا قرنقي سديدات بوها أما تضباط بوها أرد أسأل واحد بالله بالي مولدك نمن رافضاه لعبيديون أيا بالله قرنقي أفراد آخر كي سبينا بالله بين لكن قاربا وحي يرى هذا علماء متأخرين قار كم ذا ابن حجر يا وحي شيئا ساس شيئا السيوطي ابن حجر أصلا لفتي سا كتبتي سوي كدي ذا واحد بدن أركوري أي هذين بيرى أريد حكم الجيران أنا وأنا واحد لنا أريد حكم الجيران ها ابن حجر هتري بقول ابن حجر داير هذا حكم الجيران معايا علي ابن حجر ولا سيوطي كوا أصلا لم يدا قولك سوى حال جور جيا قولك كوا أصلا كوري وأقول دواء يكون لجوا ديدي سكور جي وأصلا بابين مع سوهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد أبدا واحد مولد يا مجران قفكي لقاه أسوى سيداس وحقنا مبتدع ضال بعد يومي قف بعد يومي صدح قيبوده وككومية ويدين شيئا صدح قيبوده وككومية وحويه قيب شرك بي وضطاه قيبنا معصبي وضطاه قيبنا انت وكم انت مثل هذا الصومالي اللي قلت وحو اسكو جرا قيبته معصده oo qaar wax aan ka soo reebo qaar kamida dadka dumarka iyo rag is dhex galay iyo muusig iyo baqlayn bay ku dhigaan sida caalamul islaami dawladaha caalamul islaami qaar kamida kaas waa macsi ilaahay in loogu dhawo warka iska day ka waa macsiba midna waa shirki oo intay yiraahdaan nabiga ka sheekaynayna bay madadan sariican ya rasuulallah madadan sariican ya hab oo rasuulka laga sheekayaan isku ogeeyne madadan sariican xaga ka timi xagee bay ka timi mawlidka nabiga laga sheekayaan isku ogeeyne annaga isaas nooga dul qaadeen masaajida naga dul dhisan tahay masaajida naga dul dhisan oo noo dhow bay isaas uga qaadaan intay yiraahdaan mawlidka nabiga sallallahu mawlidka nabiga ka sheekaynayna ay waxa qaadayaan sad labadaasi midna waa shirki midna waa macsiya markii intaas uu ka barax la'aado oo intaas aan sheegayna kuwaas waxay sameeyaan ka barax la'aado dumarkii la isku dheehayo iyo gitaarada la garaacayo iyo gurbaanada la garaacayo waxa marku ka marnaado midaan iga soo gaar nabiga allahna uu ka marnaado markaas bidca yahay qaybtaas waa qaybta bidcada
qaybtaas way qaybta bidcada oo iyadu marduudada saddexdaas qaybood way mawlidka waxyaalaha ay la yaab kale waxa kamid ah waan weydiino waxaan ku niri billahi alaykum hal fa'ala al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam hada al-mawlid ma sameey allahumma la ilaha saxaabadii ridwanullahi alayhim ma sameeyeen la a'immatul huda a'immatul al-arba'a saxaab al-madahib ma sameeyeen maya سفيان الثوري يا سفيان بن عيينة يا حماد بن سلمة يا حماد بن زيد بن درهم يا ما سميان مايا لكن وبنانتها إلى طيب وبنانتها انتاس مركي أي أركان إن لغوها يو أرنتاس عيقل لغوها يو بيران سيالنا أنا كتبت آدم كتاب ما وحلقوا وياه كتبت وحلقوا ما وايو وح الله واحد أدوب هذا أركان وح الله وحي واحد بدعة ضدك أهل بدعة وح الله وحي سميان كتاب waxay u daliilsanayaan xadiisi ayad u daliilsanayaan laakiin say yeelayaan qorta ka laabaya waa qor laabaya maxay idinku daliila qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ya yiri mawlid ka hadlaysa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kutub tafasiir tadam fiir sheek maxay ka hadlaysa quraanka iyo islaamka iyo jannada ka hadlaysa nabigana sallallahu alayhi wa sallam faraxa lagu farxa iyo in laga sheekeeyaa bishari bil awwal ma hadda maxaan ka hadlaynaa khudba loo tagay hadda maxaan ka hadlaynaa soo salligiisa kuma aanan bilaabin iyo nabi xaq yahay kutubta tafsiirka marka la akhrinayo kitaabkan la akhrinayo muxuu yahay nabiga asaasi sallallahu alayhi wasallam kitaabka uu ku soo degay kitaabkaas marka la akhrinayo quraanka maanta oo dhan nabiga laga ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo qiyaamaha iyo bacthiga iyo rususha iyo mala ba laga sheekaynayo maxaa kale asaga la amaanayo wax alla waxa la sameeynayo dhan ajir buu ka helay wax alla cibaado sax oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam ajirkaas uu ka helay faraxana qofka waxa la rabaa إنه كفرحه دائما وأبدا فرحه وحال ربا إنه قلبه سيكون جربه لكن بشر ربيع الأول النبي كفرحه يا إيش هذا الكلام هل قال بشر ربيع الأول ما كفر حسا وهي واحد صادف صدق هدنا النبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم صومك يوم الاثنين مركز يري ذاك يوم ولدت فيه كاسي كان صوم بالويدي النبي قال ضي محل آدين راشي كريم بالآدين نبي صون لو يدي رسولك الله صون كان محويا يوم الاثنين وفيرسو ربيع علماء النبي لما ويدي صلى الله عليه وسلم صون وصوم هيو ما انت لبي تمنان لما ويدين الا النبي صلى الله عليه وسلم ما انت دشوا ولا اسكو خلاف ربيع علماء ولا اسكو خلاف ما انت لباد با ما انت سديدات با ما انت تمناد با تضبي تمناد با ولا اسكو خلاف ما جره خليغاسي صفه وحبا لما قري جيرين صفه عندك وحبا ما قري جيرين صفه عندنا وحبا ما قري جيرين maxaa nabiga la weydiiyay soom baa la weydiiyay qaybna way ka tageen wixii nabiga la weydiiyayna way ka tageen xadiidkana qaybta kale way ka tageen ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه تاسوا صومكم مركم حكوا كوبية وعلة مركبة صومها علة مركبة وكوبية وحان الصومها يا ومالنتي لا يدلي وأنا مالنتي لا يجسوا دجيي وحي حاجة مرة كسر قشة مولد حاجة كسر قشة مولد احتفال كان دنبي كل سنة حاجة كسر قشة وحلا يرسوما تذكر ساعة سمينها يا معدم كودو ما صومان سنين ما صومان وحلا تجربيه اللي وقاعد ولا رع سنين ما صومان سنين تصوم بالليل قفكا سنين تهصوم قفك ربع سنين تهصوم وحيكون بدلين نبي صلى الله عليه وسلم بالله احتفال بنو سميننا بل فيرشة حديث كاس وفير صدا نبي صلى الله عليه وسلم لما ويدين ربيع الأول لما ويدين لما نويدين ما أنت لبي تمناد لما ويدين محل ويدين ما لك ولا شيء وما أنت سنين توان ما أنت سنين تحقيق شاء ست مان كستك وجرتها محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخر رجب شاء أنت بس كودا جرته أسابيع أسئلة وكودا جرتها محمد مركز ربيع الأول جي يا على كل حال أعماشا وحيالها كبرته وحاكم ذا بدعداس بأنواعها بدعة إسكائلالية قفك مسلم كاهي وحيالها عمل كيسبورين هيا بدعداس كم ذا